Ilaha niyad jabin oo haquusan. Mar walba isku day sidii aad horay ugu tilaabsan lahayd, sidii aad wax cusub ku bilaabi lahayd, sidii aad noloshaada ku horumarin lahayd, sidii aad qof waxgal ah u noqon lahayd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabtayda qaaliga ah. Muuqaalkeena maanta waxaan ugu hadli doonaa weligaa ha niyad jabin. Inta aanan muuqaalka guda galin, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saarto si aan u gaarno hadafkeena. haddii aad wax bilowdo waxaasi ha ka niyad jabin ilaa aad waxaasi ka guulgaarto. Markii aan bilaabayay YouTube channel 2022 bishii Agoosto ayaan bilaabay YouTube channelkan, waxaanan ku soo gudbiyay in ka badan 70 muuqaal. Markii aan ku soo gudbiyay 50 muuqaal waxaan haystay kaliya 100 subscribers. kama aanan qoysanin oo isma aanan dhihin weligaa ma gaaraysid subscribers oo ma aaminsanayn in aan gaarayaba xitaa 1k subscribers, balse waan dadaalay oo juhdi ayaan bixiyay. dhalinyarada maanta Soomaaliyeed waxay sameeyaan in waxa markii ay bilaabaan waxay rabaan inay si dhaqso leh ay ku gaaraan guusha ay wixii ay bilaabeen. haddii ay ahaato ganacsi, haddii ay ahaato waxbarasho, haddii ay wixii wadaan ma joogteen karaan. joogteyntu waa muhiim. weligaa dadka ka duwanaa oo wax cusub la imaw. dadka ha la mid noqon. inta badan waqtigaada ha ku dhumin social media. maanta adduunka casriga ah ee tiknoolajiyadda lacag ayaa la sameeyaa. wax walba ayaa la sameeyaa. yaana lagu dhihin lacag ayaa la iska sameeyaa. markii lacag laga sameynayo platformyada kale ah YouTube-ka iyo TikTok-ka, shuruuc ayay leeyihiin. xitaa haddii aad forex lacag ka sameynayso kale shuruuc ayay leedahay. shuruucdaas waa inaad raacdaa. haddii uu qofku dhaho lacag ayaan sameeyaa, ha iska aaminin qofkaasi oo hadhihin qofkan totally lacag ayuu sameeyaa, anna waa inaan sameeyaa oo hab fudud ku sameeyaa. adduunkan ma jiro wax si fudud lagu helo. wax walba waxaa lagu helaa dadaal. marka hore waa inaad dadaashaa. haddii aad rabto inaad noqoto qof influencer ama social media lacag inuu ka sameeyo rabo, haddii aad marka horeba hadaf leedahay uma soo galaysid social media inaad lacag ka sameyso. haddii aad rabto inaad noloshaada aad ku dabaqdo dhanka wanaagsan ayaad soo maraysaa oo social media waxaad ka soo galaysaa dhanka wanaagga ah, balse ma soo maraysid dhanka xumaanta ah. weligaa isku day inaad ahaato qof mar walba ku mashquulsan dantiisa. ha fiirin dadka kale waxa ay kaa sheegayaan. haddii aad inta badan ku mashquusho, dadka ayaa sidan ku dhahaya, dadka ayaa ku dhahaya muuqaal ayuu duubaa, dadka ayaa ku dhahaya lacag ayuu rabaa inuu sidaa ku sameeyo. weligaa ha fiirin dadka wax ay ku dhahayaan. kaliya ka fikir dantaada, ka fikir waxa adiga ku muhiimsan. inta badanna waxaa muhiim ah inaad Ilaahay tara saarato oo aad mar walbana noqoto qof Ilaahay iyo asaga cilaaqaadka uu ka dhaxeeyo uu wanaagsan yahay. mar walbana waa inaad ku tashataa in waqti walba ku dhaafa aad ku xisaabtanto. bilaa routine aan adduunkan cid noolaan karta ma lahan. maalinkii markii aad soo kacdo waa inaad jadwal ku socotaa. dadka adduunka lacagaha badan ka sameeyay ee taajiriinta ah, xitaa iyagoo sida lacag adduunka ugu sameeyay weli waxay isticmaalaan routine daily ah. adiga oo aanan weli xitaa hadafkii loogu talagalay noloshaada aanan weli ka gaarin, ayaadan weli xitaa samaysan wax routine ah. marka hore waxaan kula talinayaa inaad samaysato routine aad subaxii ku soo kacdo, ku dadaasho ilaa aad ka miro dhaliso. waadna ka miro dhalan doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo. wax walbana waxay ku xiran tahay sida adiga u dabaqdo ama sida aad u fiiriso. haddii aad shaygan iska dhaadhiciso inaad guul ka gaari karto, waad ka gaaraysaa. mar walbana ku xisaabtan inuu waqtigu socdo, waqtigu adigu ku sugaynin, balse waxaa loo baahan yahay inaad adigu waqtiga la socoto oo aad maalinba maalinka ka dambeysa horumar ku tallaabsato. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.